السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا قاهي عبد القادر أبو كرلياس كلمية كسر دبل برنامج كينا أقصونه هدي أتاي حاصله وحتى قفر بجعليه مفوضة مناعتك إن نقطة حاصله بس وحا أدق مسؤوليتك قدام من قورك قدب وحا معقولة إن تقوستو أديقو داير بس سوجد صالحة والله كسيو وعقل بدن oo sidaas aad ku wartaan muddo dheerna aad ku wada noolaataan sidoo kale waxa macquul ah adigoo dhaxaad aad guursato mise labadiinuba isku dhaqmi weysaan oo midba midka kale sanka uu ka qabsado oo meeshaas uu ku soo idlaado waxaad muddo soo wadeen waqti dheerna aad kulmiseen balse ha kulmin waqti dheer sameynta ama jiritaanka jacaylka oo aan la ogeyn natiijada dambe waa inaad ahaataa qof ka go'an xakameynta qoyska ilaalinta xuquuqda ay kugu leedahay mar'adaada ama xaaskaaga iyo mas'uuliyadeeda isla markaana ogaataa kana warqabtaa meesha jaani cirib ay saarayso waayo adiga ayaa soo qaaday mas'uuliyadeeda oo ha ka yeelin inay iska baxdo kaligeeda waayo waxaad cabirtaa xaalka iyo wadciga markaa jira waxa uu noqotaa sidii harka iyo hooska oo kale kula hadal wanaagsan oo aan qalbi jab lahayn oo soo jiidasho macquul ah kuna dheh maalintii 2 ilaa 3 jeer erayo macaan taasoo horseed u noqon karta in qoyskaagu uu sii jiro muddo fog waayo dumarku waa muraayad iftiin badan halkaad u jeediso bay wax ugu muuqanaysaa ka dhowr iftiinta iyo in aad ka aamusto iyadoo kula hadlaysa waayo haddaad ka aamusto xil ay kula hadlayso waxa uu muuqanaysaa waxaan adiga kuu muuqan ogsoonow dumarku waxay u baahan yihiin dhowris wanaagsan iyo xakameyn waayo waa sidii dunida aan ku noolnahay oo kale oo mar baan kala kulannaa culays marna wanaag iyaduna waa sidaa oo kale markay wanaagsan tahay ayuu ninka ragga u liibaanaa haddaba si aysan arrinkaas u dhicin ka dhowr xumaha kana ilaali beenta gudo mas'uuliyadda guriga loona baahan yahay noqon qof aqalka dhex jiifa mar walba ee dhex fadhiya shaqadu waa calaf haddaadan hayn wax shaqo ah ka tag guriga oo raadi shaqo wanaagsan sidoo kale si xilliga aad ku soo laabanayso guriga waqti go'an haddii ay macquul tahay fahamsi inaad wax shaqo hayn waayo dumarku ma jecla ragga guriga fadhiya ee mar walba iska dhex jiifa waxaad raadisaa mawjad horumar u ah noloshaada ha ka quusan nolosha ilaa aad ka gaarto hamigaaga ilaan mar buu nasiibku ilinku kugu soo gargaraacay alle u bari una ducee xaaskaaga isla markaana u wacdi oo waxaad fartaa wanaaga kana reebtaa xumaha adiga oo meel wax ka tusaya waayo lama helo darajada ximbaarsan inaad xaasla noqoto waxaa darajadaasi gaaraa qof alla uu jecel yahay tusaale waxaad fiirisaa sanadahan dambe asxaabtaada rag iyo dumarba 10 qofa oo meel wada fadhiya ama kula socda hal ayaa xaasla ka ah uuna ka qurux iyo dhaalwacan yahay kuwa kale aan xaaslaha ahayn haddii aad doonayso inaad dunida horumar ka gaarto marka hore waa inaad xaaskaaga qalbigeeda wanaajisaa mar walbana ka farxisaa xaasku waa sida malabka oo kale waxaa garta macaankooda qofka garta xaqa iyo xushmada ay leedahay xaaska haddaba ogsoonow xaaslow allabaa ku jecel oo khayr kula soo doontay ee xaaskaaga dhowro waayo ilaan dharbi inuu yihiin fadlan subscribe noo saar mahadsanid